aad iyo aad waxaa joognaa sheekadeena ugu dambeeyay oo aan qaadanayno maanta oo ah sheekadeeni 14aad ee luqadda Talyaaniga. sheekadan waxay ku saabsan tahay gabadhan halkan idinkaga muuqato. waxayna ku bilaabanaysaa sida tan: Mi chiamo Anna, magacaygu waa Anna, e sono della Spagna, waxaana kasoo jeedaa dalka Isbaanya ama dalka Isbaanishka. joogsi studio waxaan wax ka bartaa in università jaamacad a Roma oo ku taalo magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. joogsi sto imparando waxaan bartaa l'italiano luqadda Talyaaniga. perché maxaa yeelay voglio avere waxaan rabaa inaan yeesho ama inaan helo più amici xoogaa asxaab ama xoogaa friends. okay, marka loo kuelinaynaa mi chiamo Anna, magacaygu waa Anna, e sono waxaana kasoo jeedaa della Spagna, dalka Isbaanishka. studio waxaan wax ka bartaa in università jaamacad a Roma oo ku taalo magaalada Roma. sto imparando waxaan bartaa l'italiano luqadda Talyaaniga. perché maxaa yeelay voglio waxaan rabaa avere inaan helo più amici xoogaa asxaab ah. okay, saacadii waa aqrinaynaa. Mi chiamo Anna e sono della Spagna, studio in università a Roma. sto imparando l'italiano perché voglio avere più amici. okay, Soomaaliya ku aqrinaynaa. magacaygu waa Anna, waxaana kasoo jeedaa dalka Isbaanishka. waxaan wax ka bartaa jaamacad oo ku taalo magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. waxaan bartaa luqadda Talyaaniga sababtoo ah waxaan rabaa inaan helo ama inaan yeesho xoogaa asxaab ah. okay, gabadhan waxaa lagu magacaabaa Anna, waxay kasoo jeedaa dalka Isbaanishka. waxay wax ka barataa jaamacad oo ku taalo magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. waxayna barataa luqadda Talyaaniga sababtoo ah waxay rabtaa inay hesho saaxiibo ama friends oo u dhashay ama kasoo jeedo dalka Talyaaniga. okay, waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. hoos waxaa ku qoran haddii aad fahantay kusoo qor commentiga waan fahmay. haddii aadan fahminna soo qor ma fahmin si aan ku fahansiino. sheekadan inta sheekaas u qaadanayna waa sheekada ugu gaaban misana ugu fudud saan isla ah. waxaan leeyahay a presto, ciao ciao.